بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتو تاريخ ذو أي تهاي كوي توانكا فبراير لو كن لباتنيشن وحان صوبوقني مجلس القرآن مقالة كينيا نيروبي مجلسك وفدقي سوية هي الشيخ حسن الواجدي وحا إيوه ليو سفر كيغا الأستاذ عبد الله محمد مرسل إيوه الأستاذ حسن محمد مرسل أو كيميت مقالة الدوحة قطر بإذن الله تبارك وتعالى. waxaan halka idinku soo gudbin doonaa majliska sida wax loogu barto ardayda sawdkooda iyo qiraa'ooyinkooda iyo say quraanku u xifdiyeen. Haddaba nala daawada nala fiirsada sheerta iyo like iyo baafintana waa dhankiina insha Allah taala fiidiyoga ka faa'iideysa. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. wa anigoo ah Ustaad Qadis Ibrahim, Nairobi, Kenya. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطأ ويسمح. نحمده ما أمسى النهار وما أصبح. الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا ونشكره على الدوام كثيرا. أعطى خيرا كثيرا وسرف شرا كثيرا فسبحانه من إله غفور رحيم. يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد أحبتي في الله. هرتا waxaan aad ugu faraxsanahay maanta anagoo idinka soo ziyaaranay wadanka Qatar oo runtii majaalis القرآن waxaan maqli jirnay idaacadaha waxaan ka arki jirnay tawaasul ijtimaaciga iyo maqaatic fara badan aan soo gaari jirtay laakiin maanta waxaan sharafnaa inaan idin kala soo qayb galno majliskan waana waa ka dhantihiin runtii dad la waaniyana anaga ina adinkana waanisiin anaga wadan waxaan ka imaanay haddaan saraaxa runtii idin sheegno anug dhiganayo dugsi sare sanadka ugu dambeeyay dhiganayo marayo oo haddana aan akhrin karin suuratu duha ama suura gaalibkan ka hadla dadka ugu badan oo wadankan ka imaanay joogo quraan ma lagu karo waxay ka dhigaan kan ugu badan wuxuu xifdiyaa laba suurad saddex suurad oo ku tukada